waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiiyo cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghinan nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wa ilaa tafcal, haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo, mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oo diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tagno oon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. ghinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo ku xasila. qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahay rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaada markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqata dacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man caada mariidan aw zaara akhan lahu fi llaah naadaahu munaadin bian tibta wa taaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday, ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinun ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee, wuxuu qalbigu ku xasilayaa waa ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ila dikru lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nabi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illahi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat lcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusanoo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaada dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi, nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay. cabdullaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay. markaasay aragto way la oyday iyadiina. markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? markaa bay tihi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tihi. markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam, wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya. anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro, hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi. uma intaa kadibna nunaji aladiina ataqow, kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonaa baa ilaahay yidhi, waan nabadgelin doonaa. wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya, daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi. dhabtuu ku jifaa. innaka maanta khafladda inagu dhacday, qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa. iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen. nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey, waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allahuma jannibna ashaytaan allahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana. markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo, laakiin ma ka baxayaa? taas ayay kala caddayn buu yidhi, taas ayay kala caddayn. zuraarata ibni abi awfa raximahullah taabici buu ahaa, imaam almasjid buu ahaa. salaat alfajarkii buu tujinayay dadka. rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa faاftataxa suurata almudathir, markuu gaadha faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir. halkaa markuu gaadhay khara cala alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata. gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray, sidii buuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo, yowma albacthi weeyaan. aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay, dabeedna meydkiisina gurigaa loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi xawraaye qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay. waxay tihi nin quraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay. anigaa carabiya ma cid kalaa? ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa. anigaaba qurayshiya ma cid kalaa? ha ummadda muxamed buu ka mid yahay. anigaa muxamede ma cid kalaa? ha waa cumar binu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa, khayru nnaasi buu ahaa bacda annabiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane. khalqiga kale ilaahay abuuray baa la yidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa. kaasaa maskiidka nebiga soo galay, wakhta saxar buu soo galay. wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almaszuur ina cadaaba rabbika lawaaqic. halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi, gurigiisaa loo xambaaray. 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin. quluubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun. butuun maxaan cunaa, maxaan fuulaa, maxaan qaataa, halkeen galaa, maxaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran, adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay? maya kama warqabee ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad halaa alcaysh, noloshii baa noqotay haali.
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday, roodhidii way ziyaaday, shaahii uu ziyaaday. markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi, anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar, aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray, wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad, asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay. razaaq waayo, man huwa arazaaq? allahu rabb alcaalamiin. razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali, caasigu arsaaqa umana aabba yeelo. laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. xadiis alquds ilaahay baa leh, adigana faraa'id baan ku saaray, anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi. cabdii laka calaya risqak waliya calayka fariida, anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii, anaa arsaaqadaada ballan qaaday. adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horayso. in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika, haddii adigu faraa'idaydi iyo waajibaadkayga aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay, anuu arsaaqada kaa goosan maayo. kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaktinaysa ka waran, haddii xubin jirka kamida fadhiisanayso, shaqada joojinayso, see noloshu noqon lahayd? adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii 5,000 oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markay ilaahay caasiyeen. sidee noloshu noqon lahayd bal ii sheega? araggii uu ina siiyey waan ku caasinay, maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay, caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay, dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay, risiqii buu ina siiyey waan ku caasinay. ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim, anigu macsiye ma dayn karaya, maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi. macsiyo ma dayn karayo, cisyaan ma dayn karayo, zine ma dayn karayo, been ma dayn karayo, khamri ma dayn karayo, tumasho ma dayn karayo, xaaraan ma dayn karayo, maxaan sameeyaa? wuxuu yidhi waxaad samaysay ma garanayo anugu, ma qiil baan kuu raadiyaa buu yidhi, ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa? ma jiro buu yidhi qiilkaas. sheekhaa doonta u teg, sheekh ku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyda naftaadii muu jiraa? waar ma jiraa? ma jiro. maxaan sameeyaa? aday ku taallaa buu yidhi, laakiin soo noqo mid baan ku odhane, macsiye ma dayn karaysid? ha ma dayn karayo, naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday. maxaa iga qaalib noqday? naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii. haye maxaan sameeyaa? wuxuu yidhi dee caasi ilaahay, laakiin mid baan ku odhan, anigu 3 arrimood baan ku odhan. ilaaha aad caasinayso, arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey, risqiisa dee u daa, ha ka cunin. biyaha ayaa ku siiyey allah, hawada ilaahay baa ku siiyey, bariiska ilaahay baa ku siiyey, caanaha ilaahay baa ku siiyey, cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey, risqiisa u dhaaf. marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo, dee risqiisa u daa, dee maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi. dee siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto, isagiina dib aad ugu caasido. mid labaad baan kuugu dari buu yidhi, dhulkan aad ku joogto isagaa le, uga kac, dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal, halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi. ma jirtaa? dhulku waa dhul, cirkuna waa cir. gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto, dadkao dhan gudaha un bay joogaan. mid baan maalin nambar telefoon kala hadlo, nambarka caadiga, wuxuu idhi iska goo buu yidhi, sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye. war maxaa dhacayo? wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu ihi, dibadda. markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane, kulligeen gudahaan ku wada jirnaa. gudaha adduunka dhanba waa hal qol keliya, halkaa qolna ilaahay baa iska leh. war hadda soomaaliya ka wada imanay markaan ka soo tegayna dalkan, ma caalam kalaa lagaa furo soo gashay, mise dhulku dhulkii unbuu ahaa, cirkuna cirkunbaad hoo socotay. 15 saacaan diyaarad la soconnay, 15 saac non stop. samaduna sidaan bay dusheeda u taallay, dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay.
hal qol weeyaan adduunyadu qolka ayaa iska leh ilaahay in lagu caabudaa loogu talagalay in lagu caasiyo looguma talagelin wuxuu yidhi dhulkan isagaa leh haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo uga kac dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono dee ma dhici karto ma jirto dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi saddexaad baan kuugu dariye meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuumo oo halka ku caasi may jirtaa ما جرتا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار هبين معلن افتين مدو سريسو موجي عليم بذات الصدور يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع بصير ويان مخلوق ودن هدي أي ميلس ودا تاغان أي بريان وأفكوغ إلهي كبريان ومثل بباهيدي سيلاهي وشيكتو مثل بإلهي سوتكي سوا مغليا باهيدي سن إلهي ندبولو أودي كرا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضمه يجيوب إلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يوسف الأرسنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك الساعة معصيتي قفلت كجري هدي أقوير يا عبادي كوا صالحين تتكنينا محاضو ملين مقعوق يدي لها فرعون وأوجيها إنه قال يهي إنه قال لما كل من يوجيها إنه أهل النار يهي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسا كل هذا لقى يا بينه وانتوبوا إلهينا كبقوا صون غضي وفرعون أولى الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال لبني إسرائيل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فرعون وكبروق وقو هذا الله لك وهلا يي هدي مركي موسى الله دري إلهي موسى كل يهي هذا الجلع سنكون هذا تعود الدبرية كوي مسرفين تاها قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول عقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي ما كمر كنا بيقول صوق عليه الصلاة والسلام أيو تبي وداوي وحشي هذا كعب حسد الله يقول وكادونت كذبتك ويرى حيبتها لو سو غاري سقو دمعسن با انو كسو طلابه جزيره العرب وارض الحبشه وسو غدبو مركا وحشي ها رسولك الله بان كا ويديو كو يريا سبحان الله انيكا ما انو حمزه دلي وأذيركي دلي ومشركة وزنيستي صوت دين دين شيء يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو قفك إلهي غيرك عابدا إن نف بني آدم نقويا إيه الزنيسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أنا قوان كل عيه بل أرض محمد يسوي دي يبود الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كان مكو قوي مادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. آياته قرآن كمركي وحشي لغو كر أخريينا وحير إلا من تاب وشرد ككوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط داسوي بدنته بالله أنكو مبوحين كريم بو يدي شروط بدن بل ازدبا دغه مشه way soo noqdeen hadana aayad quraan uu nabigu soo qoray inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha inna allaha ilahi la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha markii aayada lagu dul akhriyay wuxuu yiri hada ara ba'da mashi'ati allah ilahi ku doona meesha ku jirtee bilo aniga ilaahay dambigayga inuu dhaafo ma doonin buu yiri ay nasub ajeeb waa ninkeena kuna hada maxamed iyo abu bakar iyo umar iyo maaha xasan iyo xuseen maaha waayo waa wahshi waa qaatil hamza ninki hamza dilay weeyaan maalintii nabiga adeerkii la dilay alayhi salaatu wassalaam ee ansaar meydkooga ay uruursanayeen ee nabiga la yiri waa kan adeerka meydkiisii wuxuu arkay halkaas laga dilaaciyay Hamza calooshiisa intuu la kala dilaaciyay ayaa madaqariha uuskina banaanka lagu sheediyay kariyihiisa ee beerkiisina cid lagu daadiyay markaasuu nabigu argagaxay alayhi salaatu wasalaam markaa uu saxaabada ku yiri walaashii safiya soo socoto ka argagaxaysay horay isku celiyo mara ku duuduuba rasuulku yiri go'is intuu u tuuray dadna lilma ka daadatay rasuulkeena markaasuu yiri يا عمي أدركي ما مغلى يا شهيد خلاص وحوري تضبعات قريشة أنا وين أنكو أرجداب الرسول كويري مركبا القرآن كاسودك وحيقة حي سودك تعايد الشك فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال له كويري هذا أرجو سنيسد وأدرك أو أرجو سيد بإلهي كويري دائما بالغاد دي ادغنا ميدون دشو با الهي كو يدي حداد صبرتين نه صابرين تصبر كما خير بدن با الهي كيدي يعني حماسد اني كو قادم بلا ليه ليتخذ منكم شهداء انك ضمعني با الهي قاركين اني دينته او شهيدان ادركا wax kama nuqsaamin waa shahiid weeyaan waa shahiid annaka doorayna ba ilaahay ku yiri adiga waxba kama naaqusmin waxba ku ziyaaday lagama raba inay tolnimada iyo qabyaaladu ay ku qaadeen hadaad u argudaysidna midun baa laga dilay mid u disho hadaad sabirtaana ba ilaahay yiri saabiriinta sabarka u khayr badan ba ilaahay ku yiri wa hamza ninkii dilay weeyaan ninka uu nabigu aayadaha quraanka qol baayad u soo qorayo aayadii u dambeysay nabigu u soo qoray waxay ahayd qul ya ibadiy alladhina asrafu على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آية القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيودي مركزا مكلا سوق لي مركبا النبي الله كان عليه الصلاة والسلام markaasuu nabiga hortiisa ku ashahatay markaa buu nabigu yiri bal adeerkay Hamza saad maalintii u dishay nooga sheekay markuu ka sheekeeyay beelma ka daadatay rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaasuu yiri waxa wax shay ilaahay baa hidaayada kula doono ku soo hadeeyay marka wajigeega ku arka adeerkay baan xasuusanayay marka xalaqaadka sidaa saxaabadeeda aan wax barayo adigu xagga dambe iga fariisay buu yiri indhihiisu hadday arkaan waxay xasuusanayeen adeerkii indhihiisu inay aragta ma jeclayn qalbigiisuna naar inuu gala ma jeclayn hada tabiicat al-anbiya sida indhihiisu waxshii inay arkaan aysan u rabin adeerkii buu ku xasuusanaya kadalika qalbiga muhammadna ma rabin inuu waxshii naar u ku dhaco فإلهي هنو توبت كأنه سجى أرزاقيا هذا ندتك إلهي وعاصنا يا المانت وحنا سنة سجى نسيي
haddana waan caasiyaynaa. yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay, kiinnii hore kiinna dambe jiniya insigiin kiinayniigu alla ka cabsiga badan haddaad sidiisa iga cabsataan baa ilaahay leeyahay, mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan. mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan. ibliis calayhi lacna haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum. culamaau lxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi lacna. sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey, haddaad ilaahay u wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay, milkigayga iyo awooddayda waxba iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi. ilaahay innaka u baahan. laa tanfacuhu طaaca walaa taduruhu macsiya. waa munaajaadkii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira hab lii maa laa yanqusuka wاغfir lii maa laa yaduruka inaka anta alwahaab. yaa man laa taduruhu الdunuub, yaa man laa taduruhu الdunuub, kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow, maqfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow. waa munaajaad. markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaabuu ku ducaysan jiray. marka طaacadduna ilaahay waxba uma siyaadiso, macsiyadduna waxba kama naqusto. man camila صaalixan falinafsihi, man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi, man ihtadaa fainamaa yahtadi linafsihi, man shakara fainamaa yashkuru linafsihi, wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum. bal qur-aanka u fiirso. naftaada haddaad hanuuntana naftaadaad u hanuuntay. man tazakkaa fainamaa yatazakkaa linafsihi, ninka naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliyay masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa, ee dembiga naftiisa kaga maydha طaacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha, naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi. man camila صaalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi. kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya ilahay waxba uma qabanayo. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala inakaa ilaahay u baahan. nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey? inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysan lagu siiyey. araggu waa nicmad, maqalku waa nicmad, wakhtigu waa nicmad, islaamnimadu waa nicmad, bini aadantinimadu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, arsaaqaddu waa nicmad, habeenku waa nicmad, maalintu waa nicmad, dhallinyarnimadu waa nicmad, caqligu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad, arsaaqaddu waa nicmad, amnigu waa nicmad. wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ciise bnu maryam calayhi الsalaam ayaa arkay nin labada gacmood halkaa ku go'an, labada lugoodna halkaa ku go'an, indhale oo waxbana aan arkayn, jidhkiisana ay ku dhacdee baras oo wada cad, oo ku ducaysanayoo leh ilaaha waxaan ku xamdiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey aniga. waa ninkii? waa nin labada lugoodna halkaa ku go'an, labada gacmoodna intaa ku go'an, indha aan lahaynoo waxba arkaynin, jidhkiisana waxaa ku dhacdee baras uu wada cad yahay. waxauna ku ducaysanayaa yuu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay. nebiyullaahi ciisa calayhi salaam baa ku yidhi oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi. wuxuu yidhi waxa weeyaan dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin, qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa. carabna way leeyihiin, carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan. ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran baa ilaahay i siiyey. qalban shaakiran, qalbi wuxuu ilaahay siiyey mar walba mahadnaqaaya, iyo carab wuxuu ilaahay siiyey daakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan. qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa, maxabadiisa, jacayladiisa aanan ku hayn, iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn,
wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaha ka waashay ka kalea ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta uu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daaweyn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxaa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan malagaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malagaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calayna rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro maxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa ayuu leeyahay qaala inakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaraysan ood ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشى ديني جنة ديني حرية ديني الدون كاتكو سوق عادتين لحدن كي سنة أدوية أياد حقيقة مودين وحين كو سوق قديمتين وحن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa baritol aakhiraan tagaynaa arinii maada qadamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku uu isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aad i siisay baa i mashquulisay intaad i siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal faasadaqa wa akun min alsaalixiin walan yuakhir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun baa taala haddana mar labaad buu ku celin ilaahay jala wacalaa su-aasha jawaabtii buu keenayaa ilaahay markaa buu ka sii jeesanayaa yuu leeyahay khuduuhu qaada buu ilahay odhanaya malaa'igteedii malaa'ig zabaaniye la yidhaah oo jidhkooguba ka samaysan yahay naar jidhkiisay qabanayaan buu yuu yidhi ibnu cabbaas meeshay qabtaanba way soo go'aysaa lafihiioo haykala ayaa hadhaya mana dhimanaya dhimasha way dhammaatay kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu alcadaab jidhkii markuu ka dhacaba jidh kalaa markiiba loo soo saaraya oo soo baxaya dhimashana ma jirto markaasuu argagaxayaa meeshii la qabtaba way go'day gacantaa la qabtay way go'day mid dhegtuu qabtay way go'day mid xagganuu qabtay way go'day markaasuu alaa tarxamuun malaa'igtii buu leeyay maadii naxariisanayn waad sidee naxariis ma lihidino markaasay odhanayaan arxamu araaximiinkiiba kuuma naxariisane naxariistaad naga sugaysa annaga maxay tahay khuduuhu fagulluuh ثuma aljaxiima salluuh ثuma fii silsilatin darcuhaa 70 diraacan faslukuuh maxaa loo cadaabayaa inahu kaana laa yu'minu biاllahi alcaظiim ma carafa xaqa almacrifa ilaahay cadamadiisa qalbigiisa may gelin jannada naxariista ilaahay baa lagu galaa uma waxaa lagu galaa iimaan naarta waxaa lagaga badbaadaa ilaahay naxariistiisa lagaga badbaadaa uma waxaa lagaga badbaadaa waa iimaan meel loo baxsanayna ma jirto markaa muddadan yaraan adduunyada joogna waxaa laynoo keenay walaalayaal inaan fahmno weeyaan muslim dadka kale sidooda ha u fikirin adigu waad ka duwan tahay adigu innaka jannadeennu waa aakhiro weeyaan shahwadeenna adduunyada ku gudan kari mayna innaku addunyaa sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay 5 sana la xidhay ama 10 sana la xidhay walciyaadu billah ka soo qaad hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi jeelka guur ka fikiri maayo ciyaalkiisi ka fikiri maayo shaqo ka fikiri maayo dhoof ka fikiri maayo walwalkiisa ugu weyn waa maxay ilaahu meesha marun kaa saar lama dilin qudhi lagama jirin gacan lagama goyn keliya waxaa laga qaaday xorriyadduun baa laga qabtay bas qofka la xidhay maxaa laga xidhaa badii sheega xorriyadduun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii u haystaa biyihii u haystaa weliba waxaa la leeyahy iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii lagu soo celin addunyaa sijnu lmuumin wa jannatu sijn lmuumin waa muuminkee waa muuminka waxa uu doono u eegayn waxa uu raba uun arki karayn waxay naftu doono ma dhegaysan karo waxay naftu doonto ma cuni karo meesha naftu ay doonto ma geyn karo mar walba wuxuu leey anu addoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanaya sidii abi bakr sidiiq radia allahu canhu kharaashka ayaa qulaamkiisii kharaashka u keenayey ayaa cunto u keenay maalin markaasuu abubakar cuntadii luqmad markuu ka baday ayaa qulaamkiisii baa ku yidhi yaa khaliifata ya abaabakar awal waad i weydiin jirtad odhan jirtay cuntada halkee ka keentee maanta waad iska cuntay hamaad i weydiisay markaasuu xaggeed ka keentay zaman jaahiligii dad aan u soo faaliyey faal oo mushqaayad aan ku lahaabaa maanta mushqaayaddii isoo siiyeyoo
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq saasoo farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi maanoo xadiidkii nabigeenna maqlay calayhi salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaan luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unbaa xaaraana bay ku odhan soomaalidu imanka gaajada unbaa xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la war waxaa diintu ma ogolaan wuxuu ku odhanayaa ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bulaacad socotaanahay bulaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adhi iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa ad waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar u ina asturay أستري عيبتني بو قريي يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مركو لا إلا مناجونا يا من يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل إله قروح ذي بنانك أصو ساريو والله عيبتي إذا نقصان تيدا أنيك هدادي وقال لها يدين إما دقيستين لكن سترك إلهي بان يقولها الله يا إن يكون سترك إلهي بان مسكيته كفر دان يا الرحمة إلهي شيخ يحيى بن معاذ بها محدثين تبوها تابعين مركو دنتي أيام منام بالغو أركي منام دتك ول وناكسنا ويسركي الموقتها دتك إيمك دوف أمي كوري ولا دوف سوف بدي كتل أبو تلياني قالوا كوري ونمد مركزوا أنو والله وان أركانو يوروب قالوا واسيس علاي سلامة والرياض هذا ركت من الروم بعد وحي مسكح هذا كجرون بهابينك شيطان كوكاسو دح ساري دتي وناكسنا جنة أركيين وقيامها أركيين وإلهي وجهي سي أركيين علماء قاركود ركبة إلهي تأتدي سأركا يا هبينك مركز استحضان ركبة هبين والبنبي محمد لكل ما عليه الصلاة والسلام يحيى بن معاذ بكمدها مركو جيري ودي أيام منام لقو أركول لقول يا شيخ يحيى ننع واعدة ومحدثة وزاهدة وأمد جعشها هذا هيدا ما فعل الله بك محاد ربك كلكلة نوشك بالقويدي مركز سوري فضحت والله فضح وكف فضح حضوضي وكف فضح حضوضي بنك قيامة وإلهي يقولي سوقبت يحيى كان والله هرقي يا إلهي مركز إلهي يقولي شيخا حن ما أنت عملك أكتيد الصور دقتي إذ سلادها وتكبت بهذا شيخ بالويدي بودي مركز يا رب لحية صد حج
ayaan Carafa joogsaday oo nagtaada soo dhigtay markaas Ilaahay igu yiri minna kama naqbalin sheeg amal kale markaas aan ya rabbi 63 oo khatma quraaniya ayaan soo khatiman wataa markaas lagu yiri minna kama naqbalin waa kugu soo celiyay sheeg wax kale markaas aan dhulka eegay markaas aan isriday amalkeen kala sheeganba labadii amal islaha waa ugu rajo fiicanta waa 36 xaj Carafa istaagay iyo 63 oo khatmat alquraana intiiba markii la igu soo celiyay la yiri lagama aqbalin la igu yiri ayaan madaxa ganoodiyo la igu yiri walibana kor u taag madaxaago amalka aad agteeda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan ya rabbi hay anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hay adigan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagayo rabb kariima ghafuura shakuur rahiim sataar xaliim latiif cafuw ghafuur rabbiga sifaat kale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watay ya rabbi anigu adaan ku imid bas markaas Ilaahay guri hadda adii timide waa ku dambi dhaafay jannada gal marka raxmada Ilaahay ba jannada ku galay dadka u sheegay buu yiri hadii waa taabiciintii waa zuhadi waa muhaddithiintii waa salafu hadhihi al-umma Hasan al-Basri maanta akhrisanay maanta Hasan al-Basri wuxuu yiri 30 sano ma qoslin 40 sanana هذا ما لا يعني وكفتنا كما هذا البيودي إنكم مالنتي مسجر بان كفتنا إمسان عيتمينا إمسان ومد حمنينا إمسان وحان دونا يجينا إمسان وحان دونا مغلينا لقد أدركت أقواما وحان سوغاري أقوام بود أقوام وحان سوغاري وصحابتي صحابتي رسولك الرجال كسوغاري مركان لجوجي وحان كدها هابو يري توق ما كدها هابو توق وحسن البصري بهذا الكلام أين نحن ما أنت الكين جوجنا ما أنت إلهي هنطوى بدكينه زمن أذك بانكو جرنا زمن أذك مسلمين تدي وحوم بك سيد عايا مسلم كمان أنت مرة يكل اسكدرو مرة يكو عيس عايان يا مرة يكو عيس دميان وما كسي حق جرنا إنكونا الصومالي هدانا هاي وحي دلكينا أفرت السنة كورا كوبا بيني أيا إلهي مك دلكيني دلكيني كدح سعود قب يالد صومالي دينتي سوا معي وقب يالد واتا هالكاينا دكتي ويان واتا أمده نقربتي ويان طريقة الوحيد طريقة كليا ما أنت أمده أي كبت باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محوكوها قاقي موياني أول كي أمدا محوكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محوكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو نقاليسي عقليسي علميسي وقتيسي وكلبخ إلى آخرتيسي دينتيسي يينو كنا على طول الأمل هيد ديلا ديري وان نولان دونا وان جري دونا وان غاري دونا وان دسي دونا وروحاس الشغل هذا ما هنا وحا كاغا هوريسا وان ديمن دونا بريتولا عاوا قبل كو يدعي مايو اني وين ترادا طريقه داس رجوع الى الدين بالله ربا امدين لوو سو عليا مانتا طريقه الوحيده طريقه كليه امدو اي دينتا كسو نغون كرتا أي أمد الدين تكون قبسا كرتا ومعي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو وضا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا صو وضا الصعدة أمد كوبت بعدين كرنا مانسا إن المسلم كا داتك مسلمين تواوينا أي جوجنا إن دعوة كسو قبنا دعوة ومحي أمد وحنو غيرنا الشرك كانوا غيرنا إيمان كانوا غيرنا غفلة كانوا غيرنا ذكرك نغيرنا جهلك نغيرنا علمك نغيرنا ظلمك نغيرنا إحسانك عدالة نغيرنا السمعة والرياضة نغيرنا إخلاصك نغيرنا ددالك الدوية أي أمد أي كل دعضي دراري هبنا الدوية لغا فكريو أي كسو دح قبنينا ددالك الدين تنمد نغيرنا سوق نغيرنا مساجد نغيرنا الدوية نغيرنا
آخرة ugu yeedhayna jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaalay culimada ku xidhma culimadaad ku daba liibaanaysaan hada huwa طريقة الدعوة inay diintu fido dacwada u sababa inay diintu baaqi noqotaan cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajida u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwadda hadda maaha dacwatani tan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxyaha magacoogi shaah macaan dhallinyaradeenii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka bayaanada ka jeedinayso waa tacliim dacwad waa maxay waa jawlaad ina laka fi nnahaari sabxan طawiila dabaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabaal dheer aayaddu waa maki awaa'il alaayaat alatii unzilat cala almustafa fi xayaati makiya fi suurati almuzammil weeyaan magaalada maka bad ma leh badda uu nebigu dhex dabaalanaya waa baddeeyey waa mujtamaca ninka lugaynaya berriga lugaynaya iyo ninka bad ku dhex jira ee dabaalanaya isku socod maaha ninka berriga lugaynaya hadduu daalo cadceeddu ay qabato geed hadh macaan buu eegan oo ku nasan cadceeddu markay ka jabtana uu iska carraabi soo sidaa maaha waa sayr baa la dhahaa u socda ka bad ku jira ee dabaalanaya dabaasha mar keliya uu joojin karaa waa markuu badda ka baxo hadduu isagoo badweynta ku jira uu dabaasha joojiye maxaa dhacay ina laka fi nahaari sabxan 23 sana nebiga lagu yidhi dadaal waxaa nebiga la siiyo la amray laga cabiray dabaal ha seexan ha nasan ha murugo ha farxin ha qoslin saxaabadiisa kolkuu la jooga uu yadhoo la caddaynayay bas yadhoo la caddaynayay waqtigii baa noo dhowmaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabiray nebiga sal alla alay slam dadaalkiisii dabaashii goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu ihi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiqi alaclaa ilaa jannati alfirdows maanta ay ugu dambaysay buu yidhi dhibaato dambe khalaas haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkutiris dhakhtarradii culammada mid ka badan injineeradii culammadana siyaasiyiintii culammadana soomaalidu horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadda inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu tiro badan yahay hoos baan u soconnaayo ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaan 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhahdo saleym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray
callaama khatiiba oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaqa waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday. maskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10,000 oo qof. markaasaa jamaacaddii maskiidkaan nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta, masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa, balaas waa la kala waayi. hadda imika sii diyaar garooba, masaajidka alaabtiina meel dhigta, balaasa sii qabsada. sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa 100 kilomitir baa khudbadiisa looga yimaadaa. haynoo geeyahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah ma nazaluu fii manzil, hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan. gurigiisii baan ugu tegnay. markaas jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi. waan gallay. khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay. waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa. markaasuu nagu yidhi min ayna? markaasaan ku yidhi min jabuuti. uu yaabay. jabuuti? ha dariiqeed soo marteen? waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti, sanca, khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas. maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi bal ii sheega. markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusina. waxaan u soo gallay sheekh, waxaan u soconaa baan ku idhi liislaaxi anfusina, uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina, iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno. uma waliixyaa'i juhda nebi calayh isalaatu wasalaam, dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii ee caamaduna adduunye u jeesatayna, inaan caamada u sheegno oon ku nidhaano dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa ee culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya. markaasuu yidhi kalaam cajiib. wax kale uma iman wax kale, intaa baan u soconnaa. wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya. markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi. cajiib wuu kacay. sharaabkii buu noo dhigdhigay. kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa ni iman maskiidka iska socda. annagu waxaan leenahay ninkani su-aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa, talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq. cajiib. mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay, jamaaca iigu timiday buuhi guriga. waxay igu yidhahdeen, waxaan ku yidhi maxaa dalka u timaadeen? waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada. waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada. islaaxu nafs, nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim. 10,000 oo qof oo masjidka oo musalliina salaantooda bal ka bax waa kaas. 10,000 oo qof oo musalliintiiya salaaddii markii laga baxay aawe jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan. waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhahdo ilaahay dartii u bax, waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada. waxaad soo baranaysaa fadhiga maskiidka. ayaan dhaweyta jamaacada 40 cisho oo noo soo noqotay jabuuti anuu markaska jooga. ayaan ka yidhi war aad 40 adu maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi. mid baa yidhi sheekh anuu salaadiiba haddaan bilaabay buu yidhi. maalintay jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaadiiba ayaan bilaabay. adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho. kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jiree subaxa igu adkayd, salaadda subax baa igu adkayd buu yidhi. salaaddii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii haddee toole. adna maxaad ka faa'iidaan yidhi dacwaddo. wuxuu yidhi anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi. horta xifdigii qur-aanka waan bilaabay juz camaya tabaarig baa soo dhameeyey buu yidhi. waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidon cilmiga barto. halkaa markay marayso mid baa sii ooyey. markaas war bal aamus aduha ooyne maxaad soo faa'iido? waa la aamusiin kari waayey. markaa waan yaabnay. annakii baan la ooynaba maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay. amiirkii baan igu yidhi may ma xanuunsanee u kaadiya. markaasaan maxaad la oydo maxaad ka soo faa'iido? wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala. mukhadaraadku waad garanaysaan baan u malayn, waxaan maandooriyaha. hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi. wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi.
قف والبهلك وكبو كيما كسو بوكسن بس كما سو بوكسن. هذا هو تغيير البيئة. مددا بحلق ليها وحكى لماها بيئة غير وين بيئتنا تكون حجرتو يربدل. إن شاء الله هدي لنا قد البنا وانبحينا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا بس واحد لديهن مسكيت بري أنكو جوجنو أضيب عيديني ووعدي ناير مركو هريد وعدين إنسان آد بانو يردقي سنة لكن مركا ضمان كان نحنا بودي ومركبا نلو مركا قلق يبوك سوق على تاني لديهن يا إلهي درتي وبحايا مركاسا كان نحنا بودي وعاني هذا بقى دقي سوا كود أدير نيكو مركو دخترك تقول سوق حمد يا حيسو جرن أيا وحلوس سما يا إربد ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alcohol yar lagu tuujiyaa waa qabow wana macaan irbadina way daba taala soo ma hadduu yidhahda ka waran suufkaa yar aniga iigu ekaysi ma bogsanaya maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ina barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalka diinta يا علمك يا دعوة إنا كل من صوديار منهن إن شاء الله جماعة هذا النيم هذا إن الله فريستان ودقي ستان ووقت جينا الله وحكسي سنة ديار مونها دم بيجينا الله داف دم بيجي والدين تنا الله داف دين تا الله إنه معاني مرل كنا الله شافيو ميتات كنا الله ونحرسته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله